بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا waxaan rabaa inaan ka hadlo hadalkii ka soo yeeray xukuumadda maalintii shalay ahayd oo ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo kula hadlayay golihiisa wasiirada ay ku dhawaaqeen in doorashada waqtigeeda uu ku dhaco xukuumad waxaa la rabay mar hore inay ka soo shaqayso arrimahaas doorashada hadda oo waqtigii dhammaaday oo guddoonkii doorashada ay hadleen ay baarlamaanka hor yimaadeen kana hadleen waxaa jira xaqiiqda in hadalkan hadda u yimaado maaha tan kale hadda markay dowladdii xiriir wada shaqayn maamul goboleedyadii ay la yeelan weysay oo maamul goboleedyadii intay wada hadleen ay isugu tageen magaalada dhuusamareeb inuu hadalkan soo baxa ma ahayn xukuumaday hawshaadii waa dhammaatay muddo 3 biloodaa ku harsan wax aad magacaabi kartid male waxaad ku dhawaaqi kartid male guddigii doorashada waa hadleen xaqiiqda jirtay sheegeen waxyaalaha hakiyey iyo inaysan doorashada hadda waqtigeeda ku qabsoomaynin ay rabaan in 13 bilood loogu daro waxay soo hordhigeen baarlamaankii hawshaan hadda waa howl baarlamaan waay howl baarlamaanka ay u taallo waay xukuumadda waxaa la rabay dhinaca amniga inay ka shaqayso dhinaca xiriirka dowlad goboleedyada inay ka shaqayso ay diyaariso dhaqaalihii saa ka warqabtaan dub heshiisiin xataa ma dhicin dhammaan geyga soomaaliyeed haba yaraatee wax dub heshiisiina kama dhicin waa ka warqabtaan somaliland waa ka warqabtaan xaaladaha jira hadda waddanka inuusan gebi ahaan dowladda aysan gacanta ku haynin afgooye iyo xamar oo 30 kilomitir ah inuusan nin wasiira ku safri karin waddadaas waxaa ceelasha ka dhacay habeen hore noo sheegaya nin maxaa la lehay inuu dhameeyey uu dilay 5 qof oo hal qoys ah dilkiia iska socdo maalin walbaba waddooyinkay ku socdaan waddooyinkii dad baa xirtay amni ma jiro oo isu socda markaan dowladdii amniga ka shaqayn weyse oo maalintii xilka ay qabatay ilaa ay hadda meeshii ay taagneed ay joogto aysan waddooyinkii furneen aysan wax wada shaqayna maamul goboleedyadii ka dhaxaynin oo sidii amniga loo soo celin lahaa ma aha hadda inay hadasho saa ka warqabtaan awood qaybsigaa lagu xadgudbay maalin walba dadadaa la dallacsiiyaa maalin walba oo ciidamada militariga ka mid ah waa dad gaar ah oo maxaa la lehay oo corruption arrin corruption ah dadna lama dallacsiiyeyba ciidamadii furunta ku wada jiray waa nala soo hadlaan waxay leeyihiin hebel macnaha dadka annaga aan isku meel joogno waa la dallacsiiyey xildhibaanaday la soo hadlaan ilaan xildhibaanadii mas-uuliyaddooda waxa waaye golaha shacabka ah ka mas-uula wixii xaq ah inay ka hadlaan waxaa jirto waxyaalihii loogu talagalay mashruuci ugu weynaa 112 milyan oo World Bank ahaa meel walba oo loogu soo talagalay 2 maamul goboleed waa aragtay in maxaa la lehay la dhaho ha loo qaybiyo maamul goboleedyadii kii meeshuu maray waa la socotaan oo watering for agro pastoralka ah markii dambe loo bedelay Bioley project hanti badan baa si aan dadban loo dhunsaday corruption badan baa dhacay awood qaybsi baa maxaa la lehay lagu xadgudbay dad gaara maalin walba la magacaaba ha ahaadaan arrimaha dibadda arrimaha gudaha ah wax walba ha ahaadaan agaasimayaasha ahaado wixii lagu soo heshiiyey waa fulin weysay xukuumaddan jaamacaddii ummadda baranjiye ka mida waxaa laga furay meelaha dadka hoggaanka hayo mas-uuliyiinta ugu sarraysa waddanka deegaanadii ay ka soo jeedeen ayadoo meel walba laga furi karo baranjigii waxaa arkaysaa shaqada see u socota haddaa aragtid waa la yaabaysaa wasiiro badan baa la kulmnay annaga wasiiro oo golaha wasiirada xildhibaanadnaha waa u tagaynaa waxyaalaha jiro xaqiiqdan u sheegaynaa in waddanka hadda baahi ay ka jirto barakacyaashii ay bateen
amnigii uu maxaa lahay dadkii deegaanadii ay ka soo cararayaan oo meelaha dowladda ay joogtay ay imaanayaan waxa ka jiro oo dhibaatooyinkaas dadkaas aad u barakacay ay joogaan oo ku dhow malaayiin ku dhow hadda haba yaraatee waxba haysanin haloodan xafiiskaygu joogo wallahi waxaa ii yimid saddex qoys oo kale oo ku dhowaayeen oo ii yidhi muddo 7 ahba wax raashiina annaga ma karsanin waxaa laga yaabaa maxaa lalahay carruur badan inay haysteen ay noo sheegeen xaaladooda inay adag tahay ayaga keliya aysan ahayn dad kale oo badan ay deegaanadaas dhan ay abaaro ay maxaa lalahay iyo barakacyaal iyo amniha ka soo carareen wax walbaa ka soo carareen markaan dadkii shaqo abuur ma haystaan nin walba waxa waaye ninkii markaas qaraabadiisa ahaa ayaa waxa waaye wixii meesha ka soo baxa uu shaqo siinayaa sida wasaaradaha dowladda federaalka oo kale wixii dhaqaalihii maamul goboleedyadii loogu talagalay ma soo gaaraan imkaaniyaadkii oo maxaa lalahayey qalabkii ciidan ama ha ahaado maxaa lalahayey dhiirigelintii ciidanka ahaataa in la dallacsiiyo dad gaara in la dallacsiiyo maamul goboleedyada qaarkood ay maxaa lalahay ilaa ay hadda dallacsiin saxa aysan wada simin u imaanin ti hadda ugu dambeysay maanta waxaa ii yimid saraakiil aad u tiro badan oo ka cabanayo iyo kuwo ka soo hadlay degmada baardheere oo sheegaya in baardheere maxaa lalahay dad gaaraa la dallacsiiyey qabiilah dadna a maxaa lalahay laga tegey oo dadkii xataa aan loo wada simin dallacsiintii waxyaalo badan baa jiro oo corruption ah oo dowladdan ay qaban weyse ma hadday leedahay doorashaa la qabanaa ayadoo aynan ka shaqaynin doorashadii amnigeedii meelihii lagu qaban lahaa aniga waxaan leeyahay guddoonkii doorashada kubadda meel fiican bay keeneen waxay dhaheen 13 bilood halna na siiyo aan balaankeen ku samaysano waa qaban karnaa arrintii waxay kusoo wareejiyeen baarlamaankii awoodda hadda ugu saraysa waddanka waa baarlamaanka waa xukuumaddii waa fashilantay wax hadda haba yaraatee shaqo ay qaban karta male horey usoo qaban weyse markaan baarlamaankaas ayaa hadda waxaa laga sugayaa jawaab in la siiyo shacabka soomaaliyeed guddigii loo xil saaray waxay hor keeneen wixii jiray baarlamaanka ay hor keeneen hadda markii maamul goboleedyada ay isu tageen ay arkeen xaaladda waddanka in la hadlo laga daba hadlo oo doorasho waa dhacaysaa waxa waaye aniga waxaan u arkaa nin daad qaad waa ku daayo dhahay oo kombe awal waxay ahaan jirtay nin daad qaad xunbo cuskay laakiin hadda waa ku daayo waay xukuumad ku daaysay aan haba yaraatee sharciyan shaqayn karinba 3 bilood u harsan waxa waaye waa aniga nasiib daray ii tahay in ay hadda ay dhahdo waxaan qabanaynaa doorasho mar horaa laga rabay guddigii loo xil saarayna jawaab bay ka bixiyeen baarlamaankayna hortaallaa isagoo la kaashanaya maamul goboleedyadii markay waayeen wada shaqayntii hadda dhuusamareeb bay ku shirwayaan wixii ka soo baxan waa arkaynaa laakiin waxaan u sheegaynaa xukuumaddan waa fashilantay dhinac walbay ka fashilantay tan ugu weyn waa corruption markaan waxaan leeyahay annaga waxaan rabnaa baarlamaanka sida ugu dhaqsiyo badan inuu arrintan ka doodo baarlamaankii bedeli lahaa uu keeno arrintii xaliimo yarey ay hor keentay baarlamaankana uu baarlamaanka jawaab cad ah ka bixiyo laakiin xukuumadda hadda haba yaraatee ku fashilantay in waddankii amnigiisii ay sugto in maxaa lalahayey dhinacii waxbarashadii ku fashilantay oo waxbarashadii ay haystaan dad private ah ay ku fashilantay dhinaca caafimaadka saa ka warqabtaan magaalooyinkan koonfurta hadda waxaa loo dhammaanayaa cudub waxa la yidhahdo kaduudiyow waxaa loo dhammaanaya shuban biyood baa loo dhammaanayaa dadkii waxaa arkaysaa guri aan laga jeefin ma leh waxa waaye waddankii daawo expira soo gashay raashin expira soo gashay wasaaradihii ma shaqaynayaan howlihii loogu talagalay ma qabanin haddaad u tagtid waxay ku leeyihin anaga waxba ma qabanayn waxa waaye waddankan waxa waaye xafiiskaas waxaa laga xukumaa ra-iisul wasaaraha counter directorka dibadda dadkii yimid markay yimaada xafiiskaas ay qaabilaan iyo wasaaradda qorsheynta iyo maaliyadda shaqeeymihi annaga maba shaqaynay ku leeyihin markaan dad shaqayn waaye inay hadda ka hadlaan ma aha maxaa lalahay doorashaa dhacaysa waddanka waqtigeedayna ku dhacaysaa hadalkaa yeeli mayno annaga waqtigaadii hadalkaagii waa soo dhammaaday xukuumadda waqtigeeda waa dhammaaday baarlamaankaasay u taallaa awoodda ugu saraysa ilaahay waaye awoodda hadda waddankan soomaaliya maamulkeeda haysana oo la rabo inay go-aan ka gaartana hadduu ilaahay soo qoro waa golahaas baarlamaanka waay inuu shaqeeyo fadhiisto waaye hadalkayga waxaan kusoo koobaa baarlamaanka isu taga midooba
وحواي حل كان عند جنو حلبان هذه أنكو ريجين لهن سيستم كي لوجو ريجين لها إي وقت دورشة اللي قبل لها حلقوا دواقو إذن كإذن تعالى برلمانك جود الصومالي واي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.